barnaamijkani marnaba ma dhiirigelinayo jacaylka guurka ka hor. ma jiraan habab kala duwan oo ay lamaanuhu ku cabiraan dareenkooda jacayl mise waxa weeye hab keliya ayaa jira oo ay tahay in jacaylka loo cabiro. maxaa sababay mararka qaarkood inuu ninku guursado gabadh ka darajo hooseysa aqoon ahaan, dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba oo weliba ku qanacsan yahay, amaba cagsiga maxaa sababay in gabadhu ay u ogolaato inuu guursado nin ka darajo hooseeya intuu doono, amaba dhinaca gabadha maxaa sababay in ay gabadhu ogolaato inuu guursado nin ka darajo hooseeya dhinac kasta oo nolosha ka mid ah. maxaa sababay dhalinyartu marka ay dareemaan jacayl ay had iyo goor isku dayaan inay jacaylkooda ku cabiraan iyagoo soo qaadanaya heeso cishqiya amaba iyagoo adeegsanaya hadallada tirada badan leh ee ay kasoo dheegtaan filimada iyo wixii lamidka. waa maxay saddex geesoodka jacaylku? saddex geesoodka jacaylku ma yahay hab inaga caawinaya inaynu fahanno hababka tirada badan leh ee jacaylka loo cabiro. mudanayaal iyo marweyn waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aqoonta jacaylka kaasoo aad ka helaysaan dhammaan jawaabaha su-aalaha aynu kor ku xusnay. bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. xalqadan waxaynu kaga hadli doonaa cabiraadda jacaylka. labada qof ee isqabaa had iyo goor waxay leeyihiin habab kala duwan oo ay ku cabiraan jacayladooda. haddaba si aynu iskula fahanno cabiraadda jacaylka iyo qof walba sida u gaarka ah ee uu jacaylkiisa ku cabiro, waxa aynu jacaylka ka eegi doonaa hab la yidhaahdo saddex geesoodka jacaylka. jacaylku waxa uu ku fadhiyaa saddex dhinac. saddexdaa dhinac waxay kala yihiin saddex geesood. gees walba waxa uu taagan yahay arrin gaara. arrimaha saddexda gees u kala taagan waxay yihiin: kow, mas-uuliyad dareensanaan; laba, isdaryeelid iyo isdanayn; saddex, howlgalka sariirta ama isutaga lamaanaha isqaba. saddexdaa gees aynu soo sheegnay waxa weeye waa hababka ay lamaanaha isqaba had iyo goor ay u cabiraan jacayladooda. mid ka mid a waxaa laga yaabaa laba gees oo ka mid a inuu ku cabiro jacaylkiisa. mid ka mid a waxaa laga yaabaa hal gees oo ka mid a saddexdaa gees aynu soo sheegnay inuu ku cabiro jacaylkiisa. geeska koowaad ama ka koowaad ee had iyo goor lamaanuhu ay ku cabiraan dareenkooda jacaylku waxa weeye mas-uuliyad dareensanaan. labada qof mid ka mid a oo had iyo goor dareemo un mas-uuliyad. tusaaleahaan waxaa laga yaabaa ninku markuu shaqada ka yimaado ee gurigiisa yimaado inuu ku bilaabo markiiba su-aalo ah: bal guriga ka waran, xaaladiinu waa sidee, leerkii ma la bixiyay, carruurtii iskuulkii ma ka timi iyo wax lamid a. waxaa laga yaabaa had iyo goor inuu ku dadaalo wax soo saarka ubadkiisa iyo gurigiisa labadaba. qofka noocaanihi haddii uu tiirkan ku sifoobay, micnaheedu waxa weeyaan waxa uu jacaylkiisa u cabirayaa hab ah mas-uuliyad dareensanaan. sidoo kale waxaa laga yaabaa gabadhu mararka qaarkood in ay ku sifowdo ama ay ku cabirto dareenkeeda mas-uuliyad dareensanaanta. waxaa laga yaabaa inay awoodda saarto wax soo saarkeed ninkeeda iyo ubadkeeda. ninku marka uu shaqada ka yimaado waxaa laga yaabaa inay ku weerarso su-aalo ah: ka waran shaqadii maanta sidee ayay ahayd, wax wanaagsan ma qabatay iyo wax lamid a. haddaba mararka qaarkood waxaa dhacda in ninka uu diiqad ka dareemo gabadh in su-aalaha faraha badan la weydiinaysa, ama maya waxaa laga yaabaa inay gabadhu ka dareento diiqad tiro badan leh su-aalaha tirada badan leh ee uu guriga weydiinayo. laakiin waanay fahamsanayne culimada cilminafsigu waxay sheegeen qofku haddii uu had iyo goor markuu guriga soo galo su-aalihiisu ay tiro badan yihiin inay ka dhigan tahay isaga oo qofkan kale ku leh oon ku jecelahay, inay ka dhigan tahay qofkan kale inuu qofkan kale dareenkiisa u cabirayo. mararka qaarkood way dhacdaayo waa mid ka mid a waxyaabaha khilaafka ugu badan abuura. gabadha ayaa laga yaabaa inay had iyo goor ku doodo: waa maxay ninkan dankaama lahabe, had iyo goor markuu guriga soo galo wuxuu su-aale kaa weydiinaya ubadkiisa iyo gurigiisa, aniga miyaani wareysanaynba. laakiin gabadhaas way khaldan tahay. ninkan su-aalaha weydiinaya waxa ay ka dhigan tahay isagoo gabadhii shukaaminaya, isagoo hadalla dabaxsan kula hadlaya. marka waa luuqad uu ilaahay u abuuray iyo hab u gaara oo ku cabirayo jacaylkiisa. sidaa daraaddeed wiilka ama gabadha uu habka ay dareenkeeda u cabiraysa ama habka uu dareenkiisa u cabiraya ay tahay mas-uuliyad dareensanaantu, micna uma samayso nolosha romantiga ah iyo labada qof inay had iyo goor hadallo dareen leh oo soo jiidasho leh oo qalbiga taabanaya isku yidhaahdaan, balse waxa ay awoodda saaraan jacaylkoodana ay ku cabiraan mas-uuliyad dareensanaan, wax soo saarka guriga iyo danaynta ubadka iyo wixii lamidka ah. geeska labaad ama habka labaad ee had iyo goor labada qof ay isugu cabiraan dareenkooda waxa weeye waa isdanaynta iyo isdaryeelidda amaba habka romantiga. waxaa laga yaabaa qofkan wiilka ama gabadha inta uu qofkan kale ay isjecel yihiin ama isqabaan uu ka maqan yahay inuu had iyo goor ku dadaalo inuu war ka helo: ka warama xaajigii shaqadiisuu ku yahay iyo waxa la midka. ninkiina waxaa laga yaabaa inuu had iyo goor gabadhiisa kasoo war doono isagoo telefoona usoo diraya, isagoo u diraya fariimo jacayl oo qalbiga taabanayo. labadaa qofi haddii ay sidaa u dhaqmaan, micnaheedu waxa weeye habka ay jacaylka ku cabiraan inay tahay habka hadalka, habka romantiga ah sidaan inaguba u naqaano. haddaba mushkiladdu waxay ka bilaabantaa halkan. mushkiladdu waxay ka bilaabantaa labada qof marka ay isla fahmi waayaan habka cabiraadda jacayl. tusaaleahaan waxaa laga yaabaa ninka habkiisa cabiraadda jacayl inay tahay mas-uuliyad dareensanaan, gabadhana habkeeda cabiraad ee jacayl inay tahay danaynta iyo isdaryeelidda amaba habka romantiga ah. deetana maxaa dhacda? waxaa dhacda ninkii tusaaleahaan marka uu guriga soo galo
uu ku bilaabo su'aalihii ahaa bal ka warama guriga iyo xaalkii ka waran iyo ubadkii ma tageen iskuulkii leerkii ma la soo bixiyey kiradii ma bixin iyo waxa la midka inay gabadha markii isweydiiso su'aasha ninkan miyaanu damba ka lahayn waayo ninku muu fahmin gabadha habka ay tahay in jacaylka loogu cabiraa in ay tahay habka romantiga iyo hadallo macaan oo dabacsan inuu kula hadlo gabadha lafteeduna may fahmin inuu ninkanu marka uu su'aalahan weydiinaya ay ka dhigan tahay inuu jacaylkiisa u cabirayo deetana isfahan la'aanta ay labada qof isla fahmi laayihiin cabiraadda jacaylka ayaa waxay abuurtaa khilaaf burburiya qoyska mararka qaarkood geeska saddexaad ee isaguna amaba habka saddexaad ee ay lamaanuhu jacayladooda ku cabiraan iyaduna waxa weeyaan howlgalka sariirta amaba isu tagga lamaanaha lamaanayaasha qaarkood baa waxaa laga yaabaa in siduu qofkan kale jacaylkiisa uga cabiro ama mee uu dareemay in la jecel yahay ayaa waxa ay sameeyaan waxay isku dayaan inay kusoo bandhigaan dareenkooga jacayl sariirta markaa geeskan saddexaadna waa mid ka mid ah hababka loo cabiro jacaylka markaa waxaynu halkaa ka daliishan karnaa in guud ahaan hababka jacaylka loo cabiraa uu ka duwan yahay qof walba qofkan kale kuna salaysan yahay saddexdaa gees ee kale ah mas-uuliyad dareensanaan oo ta koowaad ah ta labaad oo ah istanayn iyo isdaryeelid amaba habka romantiga iyo ka saddexaad oo ah howlgalka sariirta ama isutagga lamaanaha waxaynu ka soo hadalnay cabiraadda jacaylka si aynu iskula fahno cabiraadda jacaylkana waxaynu ka eegnay saddex geesoodka jacaylka gees walba waxa uu taagan yahay arrin gees wuxuu ahaa mas-uuliyad dareensanaan gees kale waxa uu ahaa danayn iyo isdaryeelid ama romantic ama habka romantiga geeska saddexaadna waxa uu ahaa howlgalka sariirta saddexdan gees waxaa laga yaabaa mid kamid inuu ku sifoobay laba gees oo kamid ah sidoo kale waxaa laga yaabaa mid kamid inuu ku sifoobay hal gees oo kamid ah marka waxaa muhiima labada qof si aan khilaaf u dhicin inuu mid walba la yimaado habkii ay ahayd inuu ula macaamiloon lahaa iyadoo ku salaysan saddex geesoodka jacaylka aynu soo sheegnay haddaba sidee ayaa loola macaamiloonaya waxaa loola macaamiloonayaa laba arrimood arrinta koowaad inuu qof walba ogaado ugu horreyn tiirka uu kaga sugan yahay saddex geesoodkan jacaylka qof walba inuu ogaado tiirka uu kaga sugan yahay saddex geesoodkan jacaylka waxay ka dhigan tahay inuu ogaaday habka uu qofkan kale u cabirayo jacaylkiisa xilliga ay tahay qofkii inuu ogaadana waxa weeyaan xilliga lagu jiro hasaabaha ama marxaladda wadahadalka iyo safgaradka ama marxaladda u dhaxaysa geed fadhiisiga ilaa guurka ma aha haddaba dhalinyaradu marka ay ku jiraan hasaabaha wadahadalka iyo safgaradka in wakhtiga ugu badan ay ku lumiyaan subcinaya waan ku jecelahay anaa kaa daranaya wax lamida taasi nolosha qoyska ma anfacayso nolosha qoyska waxaa anfacaysa in labada qof ay si rasmiya isku bartaan waxyaaba badanna iska bartaan mid ka mid a waxyaabaha ay iska baranayaanna waxa weeyaan mid walba ka kale sida uu cabiriyo jacaylkiisa oo ah saddexdan gees ku kaga sugan yahay arrinta labaad waxa weeye markuu qofku ogaado tiirku kaga sugan yahay isagu saddex geesoodkan jacaylka waxaa la gudboon haddana inuu ogaado tiirku kaga sugan yahay lamaanahan ay nolosha wadaagayaan saddex geesoodka jacaylka halkan waxaa ka dhalanaysa laba arrimood arrinta koowaad marnaba ha kula xisaabtamin qofkan kale tiirka aad ku sugan tahay adigu tusaale ahaan haddii ninka tiirka uu ku sugan yahay ay tahay tiirka mas-uuliyad dareensanaanta gabadhan tiirka ay ku sugan tahay ay tahay tiirka romantiga ama danaynta iyo daryeelidda haddii ninku marka uu guriga soo galo oo uu yidhaahdo xaaladda ka warrama halkaad wax marinaysaan carruurtii iskuulka ma tagtay wax la mid ah ay gabadha tiraahdo ninkan aniga dambaygama laha muxuu aniga ii wareysan waaye waayo iyada nooceeda jacayl ay ku cabirayso ayaa ah habka romantiga marka gabadhaas waxa ay ka qiyaas qaadatay habka iyadu ay u samaysan tahay waana khalad waa inay ka qiyaas qaadataa qofka kale nooca ay tahay inuu jacaylkiisa ku cabiro deetana marka ay barto qofka kale si uu jacaylkiisa u cabirayo waxay ka dhigan tahay inuu shukaaminaya amaba uu ku leeyahay waan ku jecelahay oo kale tusaalahaan ninkan guriga soo galay marka ku yidhahdo xaaladda guriga ka warrama gabadha markii wayna u fahantaa sidii oo ay ka dhigan tahay inuu jacaylkiisa ninkan u cabirayo arrinta labaad ee ka dhalanaysa iyaduna waxa weeyaan qof walba waa inuu ka dalbadaa qofkan kale waxa ay tahay inuu u sameeyo si uu uga cabiro jacaylkiisa ama si uu qofkan kale u dareemo in la jecel yahay tusaale ahaan gabadha habka ay jacaylka ku cabirtaa waxa weeye habka romantiga marka ayadana waa in loogu cabiraa hab romantiga wey gabadha markaa waxaa la gudboon inay ka dalbato ninka habkii uu la dhaqmi lahaa isagu ninkana waxa uu la gudboon inuu la dhaqmo hab keensanaysa danayn iyo daryeelid waa inuu markaa ayada daryeela waa inuu waqti gaara siiyaa waa inuu hadallo dabacsan ku yidhahda waa inuu hadallo qalbiga taabanaya ku yidhahda marka gabadha waxay dareemaysaa in ninkana uu jecel yahay sidaas si lamida ninku habka uu jacaylka ku cabira hadday tahay habka mas-uuliyad dareensanaanta iyo inuu guriga ka war doono sidoo kalena uu awoodda saaro wax soo saarka iyo waxtarka guriga waxaa la gudboon gabadhu markaa inay kula xisaabtanto wax soo saarkiisaas iyo waxtarkiisa guriga waxtar iyo su-aalaha tirada badan le muujinaya inay ka dhigan tahay isagoo kule gabadhiisa aan ku jecelahay laanta ma noolaan karo iyo wax lamida haddaba haddii ay labadaba ay wadaagaan hal gees oo ay ku sifoobeen laba gees oo kamid ah saddexdaa gees ee lagu garan karo cabiraadda jacaylka waxaa muhiima inay ka wada dhaqaaqaan ka ay ka saman yihiin tusaale ahaan ninka saddex geesoodkan wuxuu kaga sugan yahay mas-uuliyad dareensanaanta iyo sariirta gabadhuna waxay saddex geesoodkan kaga sugan tahay habka romantiga ama habka danaynta iyo sariirta markaa labadoodaba waxay wadaagaan sariirta si markaa labadan qof ay jacayladooda u kabcistaan
halka ay wadaagaan waa inay ka wada dhaqaaqaan, waa inay sariirta si wanaagsan isugu qanciyaan, deetana labada gees kale mid walba si lama filaan isagaa kor ugu soo kacaya. halkaana waxaa ka abuurmaya jacaylka rasmiga ah ee lamaanahan ka dhexaynaya. sidaa daraadeed noloshan qoyska gebigeedaba waa isdhamaystir ay labadan qof isdhamaystirayaan, waa isdhamaystir ay isla dhamaystirayaan baahiyaha kala duwan ee mid walba u baahan yahay. mid ka mid a waxyaabaha ay isku dhamaystirayaanna waxa weeyaan waa cabiraadda jacaylka, in labada qofba ay isla fahmaan mid walba sida uu jacaylkiisa u cabiro, iyo sidoo kale inuu mid walba kan kale ugu cabiro jacaylkiisa hab isaga u qalanta, taasoo ku salaysan saddex geesoodka jacaylka. mararka qaarkood waxaa jirta rag fara badan inay ka tagaan dumarkoodii hore oo ay gabadh labaad guursadaan, waayo waxay ka waayeen baahi ka mid a baahiyaha ugu baahan yahay. tusaale ahaan ninkan baa waxaa laga yaabaa in nooca jacayl u cabira ay tahay mas-uuliyad dareensan, deetana marka gurigiisa imaado wuxuu dareemaa dayacaad fara badan oo xagga gabadha. waxaa laga yaabaa in gabadh ay isku xafiis yihiin ama gabadh uu meel kale kusoo arkay uu ku arko inay tahay gabadh mas-uuliyad isaga tahay uga soo baxda, deetana uu gabadha ku wareego. marka iyaduna waa mid kamid a waxyaabaha keensaday inay raggu gabadh labaad guursadaan, sidoo kale waa mid kamid a waxyaabaha keensaday inay guryo badani burburaan. mid ka mid a howlaha u yaalla lamaanaha isqaba waxa weeyaan inay bartaan hababka loo cabiro jacaylka. waxaynu soo qaadanay inay jiraan 3 gees oo gees walba u taagan yahay hababka loo cabiro jacaylka, kaasoo ah mas-uuliyad muujin, danayn iyo istaryeelid ama habka romantiga, iyo geeska saddexaad oo ah howlgalka sariirta. haddaba inuu qof walba ogaado habka uu ku cabiro jacaylkiisa, sidoo kale inuu ogaado habka uu qofkan kale uga cabiro jacaylkiisa, waxay keensanaysaa labada qofba inay badbaadsadaan noloshooda qoyska, inuu mid walba kan kale ula dhaqmo hab keensanaysa sida uu isagoo ku qancayo. qofka habkiisa cabiraad ee jacayl ay tahay habka romantiga, qofkan kale waxaa la gudboon inuu u badiyo ammaanta, inuu daryeelo, inuu daneeyo, inuu mar walba kasoo hordoono. qofkan kale ee habkiisa cabiraad ee jacayl ay tahay habka mas-uuliyad muujinta, waxaa muhiima qofkan kale inuu isku dayo inuu ka caawiyo mas-uuliyadaha, inuu noqdo qof dhiibsan oo nidaamsan oo muujiya in mas-uuliyadda uu kasoo baxay ay keensanayso inuu qofkan kale jacaylkiisa u kobcinayo. haddii lamaanuhu ay isla fahmaan hababka loo cabiro jacaylka, haddii uu mid walba kan kala barto sida ay tahay in loogu cabiro jacaylkiisa, ama sida ay tahay qofkan kale sida uu jacaylka ugu cabirayo lamaanaha qaba, waxaa si fudud u kobcaya jacaylkooda. sidoo kale waxaa laga yaabaa jaaniska khilaaf in hoos u dhaco, waxaa laga yaabaa inuu furiinku meesha ka baxo. ubadka waxaa loo diyaarinaya deegaan nabdoon oo ay ku barbaaraan, oo ay ku noqdaan ubad lagu soo badbaadiyo jacayl iyo kalgacal iyo naxariis. wax soo saarkooda waxaa laga yaabaa ubadka inay noqdaan wax soo saar aad u sarreeya, kaalin kastay nolosha ka galaan waxay uga soo baxaan siday tahay, waxa ay horseedayaan horumarka dalka. sidoo kale ilaahay lamaanaha waxa uu dhex dhigayaa kalgacalkii iyo naxariistii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay, wajacala baynakum mawaddatan waraxma. daawade aad iyo aad baad u mahadsantahay daawashadaada. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido xog muhiim ah oo la xiriira arrimaha jacaylka oo ku soo biirtay akoonkaaga qaybta aqoonta. haddaba si aad u daawato xalqad kale oo ka xiiso badan xalqada aad maanta daawatay, ugana faa'iidaysato xog cusub oo la xiriira arrimaha jacaylka, waxaad like garaysaa page-ka haddii aad page-ka ka daawatay, ama waxaad subscribe garaysaa channel-kan YouTube-ka haddii aad YouTube-ka ka daawato.